هذا الكدقة أو إذن كويري أو تسوء أجيبتين وتكون هتسنتين بقول أنت كدب أبوكر آذن وعدد ولاله وعدد أباهناي سياسة هذا اللي سومودي أو اللي صورنا في حربدات وجيه فربنا إسكالهات وجيه الكاس أبوكر آذن توصن وأنو أبوكر آذن وحلو الربي وجري أفر تقوس بقى أبوكر آذن أو قالوا عنه أبوكر آذن إنه وحل الربين أو سعودة نعك له سعودة وجري أو أفر تقوس بقى كومنا مركز سومالي ذا وحيت رادة فرت هذا حماته فرد إسكاجا مهرته كني أبوكر آذن كلي جيبسكيس سعودة أو نع وجدي أنا كنا لا شيء أبوكر كوكميديا كاس إسكامجون كرنو ما إسكالاي كرنو سيدا صويتو هذا الدق هذا الكو إنه ويري أو مشلي كجوه محمود أنتو ويري ومحمود لفت يستوى محمود وحان ربا إنها تسعة في سنة تمانتين كيف في عناي يوكيق اللعصناي بإنها تسعة في سنة ومريها فرطان وضلال نقطان ولا ليالو هذا الكو دق إنه ويري وهذا المره الرئيسي نو إيمان لهاي وهذا النجد داهي وهذا النجد داهي عدة هداي وذا السناتو oo sideedaba oday u yeero oo macnaha diliga waanyin hadal u keeno ay waaso meel la kama baxayso hadalkan uu duqa noo keenay hadal muxuu ahay macnaha noo fiicnay oo mar horeysaba intuu soo degdegsado mar horeysaba Abukar meel uu jiro intuu iskaga imaado macnaha arintan uu gacmaha isa saar lahaa hadda gundhiga hadalka muxuu yahay Abukar waan wada dhalanay kalama maarano meel aan ku kala tikarno malaha wixii shalay naga xumaaday maantii naga xumaanin haddana marka koowaad waxaan u malaynaa xalfadda maanta meeshaan iskugu imaanay rabbaa maanta ka soo shaqeeyey waxaana watay ogaas Axmed Cali Harbi wuxuuna iskugu yeeray Abukar Aadan shayna beesha asaka dhashay u yeertay maantana Abukar u yeeray anana waxaan malaynaa jaamacka reerkan ahay magaceygana waa Yuusuf Cabdulle Cumar waxaan rabaa wuxuu ku dhawaaqay waa wax sax ah midnimada reerka wax la doonayo waay hadduu ninku wax san ku dhawaaqo wixii sameeyay nagu raac way wanaagsan tahay xumaan muuse sheegin kaambeena watana muuse dhihin doorashaan rabna muuse dhihin xumaan liigu sameeyay xumaanta rab iliga bogsiyana muuse dhihin waxaan rabnaa walaalayaal oo Abukar inaan iscafino waa arrin aad u wanaagsan Abukarna wuu iscafin Abukarna wuu iscafin waxaan rabnaa Abukar siisa banaanba هذا مركز أنتو جيسان أبوكر نوح الربا ونس قدريو أنا أمير أنت أمير ما تعلو ماشا أنا أمير أنت أمير ما تعلو نوال بأبوكر ونس قدري على الربا كان كلا ونس قدريو هداي دعدو أنا أود له كان يمحوي هاي خلاف بشوكي معنا قلت خلاف نسكيل عليه ونكسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد aad iyo aad baad u mahadsantiin Abukar Aadan waxaan u malaynaa gogoshan maanta waxaa dhigay beesha reer Maxamuud Abukar waaska markii uu hadlay waxaa weeye gogoshan gogol baa ka horeysay oo shalay dhacday arrinkan markaa waxay ka socotaa gogoshan oo dhigay beesha reer Maxamuud Abukar aad bay ugu mahadsan yihiin ka soo qayb galayaasha Abukar Aadanna dhamaantooda aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan u malaynaa record aan wali dhicin intii muddooyinkan ayay sameeyeen beesha reer Maxamuud Abukar waayo sidaan ognahay Abukar Aadan sida walaalkay uu sheegay inta badan dhaqanka kuma kala maqnee laakiin siyaasadda waxa ku jira buuq tiro badan oo nin walba og ayagoo markaa bacdi u dambeeyey ee hadda doorashada u dambeysay ku dhacday in gogashi ugu horeysay intay dhigaan ay ku dhawaaqaan ereygan war halis cafiyo waa khadka cagaaran qof soo gudbay waa ummad soo gudubtay aad baa ugu mahadsantahay reer Maxamuud aad baa ugu mahadsan yahay waayo ayagoon fiirinay shalay maxaa lagu yeelay ayagoon fiirinay hebel baa saa kugu ahay
ayagoon fiilin qoysabil baa saa kugu ahay dhaxdan abukar aadan dhexdiisa ayaa intay gogol dhigeen shalay waxay dhaheen walaalayaalow marka koowaadna annagaan iscafino marka labaadna abukaraan doonno markaa luuqadda uu ugaas axmed ku hadlay waa shalay fadhigii dhacay bay ka soo baxday annagana waan oga mahad celinaynaa haddaan abukar nahay anoo weliba walaalkii iga horreeyey meeluu taraaray laakiin aan taraaro ma rabo aniga nin oday baan ahay ma jeceli waxyaalaha taataabashada iyo waxaa maadaama reer maxamuud ay saddexdii qoys kale ay u yeereen anoo ku hadlaya markaa afka reer qaasin arrintaas aad baan u soo dhawaynaynaa cafiska koowaadna waan fidinay culimana waynala joogto oo beesha ah halkan waan ku badannahay hadda annaga cafiska ay walaalaheenna qaateen oy hormuudka ka yihiin reer maxamuud abukar annagana cafiskaas waan qaadanay oo shalay ku dhawaaqeen waxaa weeye siduu sheegay ugaaska hadda wakti siyaasad lama joogo laakiin waxaa muhiim ah midnimada waxa la yidhaahdo salaanka bacdi waxaa weeyaan siduu dadkii igu horreeyay sheegay dadkii gogashan dhigay ee iskugu yeeray abukar inta hadda isheeshay gaaris joogtay way mahadsan yihiin inta soo ajiibtay ee abukar ah ee arrintan sida farxadda leh ugu soo qayb gashayna way mahadsan yihiin intaa kadib kollayba dadka hadduu islaam yahay waxyaalo aan gorgortan iyo hadal aan geli karin baa jira aan iscafinno ehel baan nahay walaal baan nahay waan isa soo dardarnay siyaasadda waxaad kollayba la iska cafinayo abukar xumaan kaloo dhex taalla ma laho inta badan wax hadda maaragtay gogashan loo dhigay ee iscafinna loo dhahayo waa siyaasaddii hore aan soo dardarnay wey marka dadka hadduu islaami waxaa la yidhaha 40 cisho wixii ka badan haddii calooshaada xumaan ku jirto wax laga aqbalayo salaada maqlab doorashadii haddaan soo dhaafno 3 sano sii mari hayso dardarkii dhacay haddiiba uqdadeed hadda la sii hayo dad hayaba la helo hadda waa kufrinimo loo dhawi sooma waa arrin fog wey ree axmed ma hadla ree axmed waa joogaan iyaga u hadli doonaan magaca boqoran ku hadlay aniga abukar midnimadiisa ninkii u horreeyey oo bilaaba anigu ahaa beri abukar intii la kala qeybiye laga dhigay oo la dhahay abukar qatane beri loola baxaa jirta abukar qatane masalaani abukar qatane la dhihi jiray berigaa iid anaga naftayn wayna soo gashay annagoo shaqaale abukar aadan yaa u badnaa meeshan la dhaho masalaani xagga education waxaa la yeeli jiray marka waxaa nugula diri jiray allahu narsay duqii ahaa xaaji dadka hadduu walaal yahay ehel buu yahay raxim uu yahay waxaa fiican cafiskan maanta ka hor in laisu imaado la dhaho aan is cafino nin islaam ee walaalkiis dhahay aan is cafino isma cafinayno xamalayna lama dhihi karo malayn culimaa fadhidaa meesha haddii la dhaho kasta fartaa la isku fiiqa wixii laga hadlaya waxaa waye siyaasaddii hore la soo dhaafay tanna waa lagu dhex jirba oo iyana way socod dad waxaa jira أنا مركب حنكون هذا باسم العلماء بنكون هذا أفكر علماء يضع العلماء وين يجون سير شفار حكاليو شيخ تجري محمد علي عمر أي فديان هذا أنا دم له حوي هذا المبدأ إن مرت اللعبة هي واحدة سيو على سوشيال أبوك لا نور شوقي هي لكن إنه سحريريو وأصلنا ما أسكو حريريو رحم وأسكريتو من بعد من taasna waxaa waaye dadka waxaa weeye waxaa loo batay wixii maanta la joogo in lagu milmo zamanka hadda la zaman xun wey fidnada iyo sharka yaa ka badan khayrkiina wuu yaraaday marka waxaa la rabaa horta kow in ilaahay laga cabsado alla ka cabsi hadduu meesha imaado oo ruuxu ilaahay uu maaragtay aqoonsanaado inay geeri ka dambaysana ogaado hadduu og yahay waxyaalo badan buu soo reebanaya waxyaalo badan oo ku dhaqmi lahaana wuu iska بسم الله وحير إسدقيسان كلي
shirka kolley waa siduu ahay waana loo sheegay iyo topic uu ka socday ogaaskana waxaa malay markii uu noo bilaabay sheekada ciwaanka laba ahaan buu ila ahay aniga saan u fahmay in la iscafiyo iyo in la isku xirnaado unity iyo cafist oo maaragta laba ahaan kale ah tolka inuu tol isku xiran noqdo lisna cafiyo marka isku xirnaashadii weli lama taabanin cafisku baan dhexgalaan galanhaynaa weli see la yeeli lahaa waxaanad moodaa dadka inay nin walba u dhahay waan cafisku waan qaatay dee inkastoo rag fara badan ay u soo noqdeen gadaal ay dhaheen cafiska abakor oo dhan looma qaadi karee inta hadda inta joogto is cafiso intana waxaan malaynay wax ka dhexeeyay oo sidaa ay oo hadda dhibaato ma jirto